برياس عدتك أدو يراين ماشى مثلا دول بهانت يدراويش كورنا يهدو يرتشان يتوقف ما كدمتي تكبرنين وقت كده تكبرنين ولو حن أدو جعلها هنا هذا قبلنا حاجة نكا أنت اللي استحنا كم باخد متي يدتك إنجليز كلا دجالمي أو كسماية كل جبيه ودول كاس رنب بنتوجي يكقاضي محيط أورما كسو قاضي أورما السوري حتى بدنا لما كنت دي أورما عندي جرني كل يوم قاعدين بحب بقول كي كي أورت ودن كحوق بالوقت ودن كان لسه ما قوانين كان ضد اللوجيميت تيري اكوزيشن waxa la dhahaa wax iskeeda caadi adduunka dhan bay ka jirtaa qolaba bay markay ka xog talbaanta ee dhulka qabsan jirtay markaas dhul balaarsigan Soomaalida oo ilaa iyo yaa qarid meel la dhaho hadda hal saac ay bar u jirtay inta Nairobi u jirto oo muingi marka dhaaftay ay tahay السلام عليكم أصحابتا عيدا أنسل سو دوادا برامجك تاريخ الشخصية ومرتنا ويا هاي مدن فارح معلم دوارة إن بدن بد دقيستين ورئيسية سياسة من بدن كهلا هسه ما أنتو حنو ورئيسو دونا برامجكينا تاريخ الشخصية حنو بدن كوغان دونا تاريخ نولدك فارح معلم مدن وكسول وينيا waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo in badan bad siyaasad ka hadashay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan dib u noqono iyo taariikh nololeedkaagi inaan wax yar ay dadka ogaadaan faarax macna waa kuma marka waxaan rabaa inaad ii soo koobtid magaalada aad ku dhalatay iyo sidii ay ahayd yaraantaada iyo noloshii aad korriimadii aad nasiibka u yeelatay yaraantii anuu horta waxaan dhashay 1956 abahay magaalo deganaa laakiin dhaqan baa jiray berigi hore gabdhaha markay ul yeeshaan reerwaamaha wax loo la dhahay qabi jireen misra guriga miyiga loo diri jiray marka magaalo kuma dhalin miyi baan ku dhashay marka magaalada miyiga ku dhalatay meel wajeer iyo gaars u dhaxaysa banka waas wadgaan Soomaa dhinacna korana wax weeyaan baatiha sayidka meel la dhahan jirtay dhankan kalena waa dhankan maxay ahayd meel dhowr oo hadda iyagana reerka degaan adamiga meelaha ma ku dhashay aniga si wacan marka dadku waa reer guraa weeyaan markay reer guraa tahay meel degaan ma aha inkastoo hooyaday meel ay deganeed markii yadayd ماشي هذا هو يدي وينوش أي غير الله سيادو داعي وين شيء كل شيء كرتا لكن نختاركم مرة الله مركما إسلاميكي أتكون على الطي صبر بعد مي مركان يركض طيبه مجال ذلك يعني مركي هراء وحلا دمعي إن لي جيسكول كان عنيقه أنا ولد هذا جارين بري هروح على أورنجري عنق مركز كول كل جي وأنا يرح سوسته نكتان قبائل أورنجري ساو قبوا هدو جاري وهاي ولي ما جاري ده لسه أورنجري تبالو أورنجري مركب وحنا عرض كعبه نوان هي هيدي اللي وضبوا أيدي نوين نولد وأنا أنت بدنا يسوق كرستي وأي هوري أنا أي كرس وحنا لفله وله سفع عن لوكرين marka aniga oo wali daadi gaarin yaa la yiri hal geey iskoolka wali yiri haddana waa la soo celiyay marka waxaan bilaabay iskoolka 63 baan bilaabay lahaa waxaa dhacday dagaalkii dhaqdhaqaaqii xornimadoonka NFD marka tuuladii aan deganeen marka iyadoo dhadhaabaheed in laga soo wado gaars la keenay hal iskool ay karibay gaars oo dhan qabtay marka gaars oo dhan gobolkan idil oo gaars hal primary school oo DEB District Education Board la dhaha ay qabtay oo gaars ku yaalo oo markan anigu imaaday galaaska lixaad u horeeyay u sareeyay highest class tan 6 buu ahaa 7 ma jirin 6 كيلو سري سكول كلنا وجير بساسو كلاها إنه كوري إن شاء الله سنة كوري امتحانات CPE بالأورنجري بريهور KPE CPE كل ما يعبيرت وحنك بالله بجارس
gaars baan ka bilaabay ilaa iyo galaaska 7 gaars baan ka dhiganay. aabbahay wuxuu ahaa askartii duubcasta la oran jiray oo rukuubleyda ahayd oo dhawrta ku socon jirtay ingiriiska waqtigiisii. awowgii wuxuu ahaa ayeydii dhalay yaa waxaa la oran jiray suldaan maadi cali baranwaa. suldaankii ajiib uu ahaa markii wajeer iyo dhulkan kulli la qabsanayay oo ilaan dhulkan soomaalida waxay ku imaatay iyo suldaan ahaa. dhanka aabbahayna gada dhulkan la yidhaahda hadda gada la yidhaahdo iyo waamada hoose iyo NFD isku mid bay ahayd berigaasiito Jubbaland baan isku jiray kulligeed isku furnaayeen hal gobol bay ahaayeen. waa la kala qaybin doonaa gadaal baa laga qaybin doonaa. marka dagaalkii adduunka oo koowaad ayaa waxaa dhacday reerkayga Dadaab iyo agaarkeeda degan ilaa iyo meeshan hadda badamadow la yidhaahdo jarajila ruqaacadal jalliti joorre kurde waxaa jiraan wara reerkayga lagu magacaabo wara dheero ilaa 26 warood dhulkaa kulli waxaa deganaa reerkaa deganaa. marka 1915 yaa waxaa dagaalamay reerka Cawliyaanka iyo Ingiriiska islaayeen waqtigaas islaayeen. laakiin Cawliyaanka laba qayb buu ahaa. qaybna waxaa la oran jiray Northern Cawliyaan oo dadka deganaa Salagle iyo Sarinle iyo Baardheere iyo maxay dhulkaas oo dhan faafadhuun iyo dhulkaasay deganaayeen ilaa ay luuq xaggana xadka ilaa ay ku Soomaaliya ay isqaban jireen berigaasiito ilaa ku Soomaaliya degan oo gobolkan afdheer hadda la dhaho Baari meelahaasiito ay deganaayeen. Soomaaliya kala badan way la degan tahay. dagaalkaas yaa anuu reerkii aabbahay reebtigii iyo cidda reerka aniga aan ka ahay maxay ahayd wadeenka ka ahay ayagana muqaawal bay ahaayeen ama reer Sacad la yidhaahdo. ma joogtaa magaalada Nairobi? kambaniga Faras Taxi waxa uu ku bilaabay offer aad lacag ku samayn kartid isbuuc walba. haddii aad qaadatid 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo faras maylisa. haddii aad qaadatid 15 trip waxaad helaysaa 1,000 faras maylisa. haddii aad qaadatid 5 trip waxaad helaysaa 500 oo faras maylisa. haddaba ka faa'iideyso offerkan axad ilaa isniin walba oo samee lacag adigoo safartaada ku raaxaysanaysid. soo talin jiray ana Cawliyahan baan ahay xagga aabbaha laakiin raabtigaan iyo raawowgaanba intaasoo facyagaa noo dhalay. dagaalkaas waxaa ku galay reerkayga ku galgalayga meeshaas lagu dhacay waqtiga Ingiriiska 1915 ilaa 1918 buu kala dhamaan doonaa oo laga adkaan doonaa. waad fahamtay sooma colaada soke oo Northern Cawliyaanka la yiraahdo inta badan dadka abaabulay oo aad uga shaqeeyay reerkan awowgii ka dhashay waxa iyo wixii la dhashay kaag dhawaan. Southern Cawliyaanka la dhaho faafadhuun iyo Sarinle markii webiga korta loo soo maqashaan nin la oran jiray Xaaji Cabdiraxmaan Mursal oo markii dambe Ethiopia ku dhiman doono oo dagaalkii dambe intuu xagga u baxsaday Iyaasu oo ahaa la taliyo oo ahaa khusuusi oo ahaa. markii dambe Hayle Silaas waqtigiisii aduu goor dambe dhintay nin aad iyo aad halgamaa buu ahaa. nin reer magaalna wuu ahaa Xaaji Cabdiraxmaan oo wuxuu ka soo qayb qaatay dagaalkii Ingiriiska iyo Mahdiga oo ka dhacay Khartoum Omdurman ka dhacay oo soo dagaalamay. Nairobi uu soo degay oo Soomaalida ugu horeysay Nairobi deganeed isni hadda meesha isni lix baloor buu ku lahaa markuu ka tagay qolo dhulbaantay ay qaraabo ahaayeen yuu ku wareejiyay oo dadkii askartii Ingiriiska oo waqtigii hore inta la keenay bay ahaayeen iyaga Isaaqi Ingiriisi waxay Isaaqi dhulbaantii warsangari bay ahaayeen. asagaas xagga abandula ka ahaa ninkii asagaas madaxweyne uu ahaa ciidii reerka iyaga oo Ingiriiska dagaalka ku qaaday oo Sarinle marka lagu jabiyay
oo gaalkii Captain Elliot laakiin waxay ku oranayeen Soomaalida Alien Dheere iyo rag jabiyay iyo dhanka ahaa isku waqti ba marka laba qolo cawliyan oo kala duwan iyo kuwana ka dagaalameen hadda Jubbaland meeshay tahay kuwana NFD meesha ay ka dagaalameen dagaalkan inta wuxuu ka bilowday waxaa dagaalamay Korean nimanka la yiraahdo Samburu iyo cawliyaanka baa dagaalamay loo fara badan ilaa 30 kun oo neef oo loo ka soo qaateen bariga hore gabdhaha Masayda iyo Soomaalida way dagaalami jirtay Soomaalida Masayda gabagabada waxaa lagu sameyn jiray ilaa ay Naivasha meesha hadda la dhaha intii la abaabulo ogaadeen baahan meesha ka imaan jirtay markii hore oo Maxamed Zubeer awliyahan muqaabul nimanka talamugal yiraahdo iswataan bay ahaan jireen gabagabada xagga laga soo abaabuli jiray korba la mari wajeer hoosteeda la mari ilaa in Naivasha baa gabagabada lagu sameyn jiray oo dumarkuna dagaalamayeen may 2,000 oo wiil oo cidaasiita waa dagaalka gali jirtay iyo rag hogaaminayo markay Masayda laga adkaado loona way ka soo qaadan jireen gabdhaha Masaydana way soo qaadan jireen marka hadda ogaadeen kan degan dhulkan degan boqolkiiba 50 ka badan dhig Masay way qabaan horta aan ku sheegay dhigeyso hooyooyinka qarasay Korea baa la oran jiray waa Samburti iyo Masayda kulli waa ma isku luqadna weeyaan wala isku luqad marka waqtiga dagaalkaas keentay dumarka Masayda laga soo qaaday dumarka laga soo qaadan jiray ragooda rag cabiidis oo galmay ahaayeen man geesiyaal bay ahaayeen way islaan jireen way laan jireen Soomaalida inta badan gacan ku sareysay laakiin gabdhaha waa la soo qaadan jiray gabdhaha Masayda bariga horena gabdhaha Soomaalida hadda inay la qurxi inay ka dareen quruxda moogi kama liidanin Soomaalida lagu weydiyay Soomaalida kan kuwan hadda waa ku hadda arkayso Masay isku yeerayaan waxa dhax galeen qabaa'ilka kale oo bantuuga ah oo dhacay ka jiray aad isku dhax galeen laakiin kuwaas marka barigaasayto waxay ahaayeen pure bay ahaayeen wadi fahamtay Soomaa marka Masayda laga soo qaaday Ingiriiska oo hiliya damcay colaadii Masayda dhaxday ka baxday waxay noqotay cawliyahan Ingiriis inay islaayaan iska dhaxbay meesha aba Korea la dhahada waa Masaydii Koreedii ma aragtay la soo badbaadiyay oo adoonsan rabay Soomaalida ay soo aruursatay oo meesha lagu aruuriyay oo meesha geedka hoostiisa lagu reeyay adoo colaadii way socotay Ingiriiska 2018 markuu ka soo gacan banaanaaday 3 sano 2015 ilaa ma iyo 2018 bilawgeedii NFD uu ka cararay Ingiriiska Soomaalida ka ciirsay oo fahamtay Soomaa ka saartay gabigeeda maxaa Queen North kana way ka saareen oo kan hadda aan ku sheegay oo ninka la yiraahdo Xaji Cabdiraxmaan Mursal iyo Salagle iyo nin la oran jiray Xuseen Bowda Dheere oo abaandulaha ciidanka ahaa iyo meesha iyo Sarinley meel la dhaha dhulkaas uu ahaa laga saaray intana waa laga saaray markii dambe waxay la imaadeen ciidamo Soomaali oo waqooyi laga keenay dadkii markii dambe halka la keenay dadka la keenay ciidamada ku imaadeen dagaalka la geliyay dagaalkii way laga adkaaday Soomaalida cawliyaanka waa laga adkaaday isma dhiibin laakiin marka waqtiga Soomaalida la isku jabiyay Soomaali waligood Ingiriis wax kale kama shaqeyn jirin darawiishta hatta darawiish Ingiriis ma jibin waqti darawiish waxa jibiyeen qabaa'ilkii maxay oo garxajis u badnaa oo maxay ahaayeen Ingiriiska askarta Ingiriiska yaa jibiyay askar buu qortay qabaa'ilkii buu qortay Ingiriiska markii dambe xaqan uga soo qaaday isla waqti bay ahayd markuu Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ka dagaalamay anaga intaan ka dagaalamayna cawliyahanka iyo dadkii marka firfircoonaa oo dagaalamayo Ingiriiska aan ogoleen waxay ahaayeen ogaadeenku iyo Mareexaan oo isla degaan bariyaayada wadi fahamtay Soomaa adu marka dambe divide to rule qaybi aad xukuntii oo ka yar dhigay way kala baxeen laakiin dagaaladii ugu dambeysay cawliyahanka looga baxay kuwii ka horreeyay waxaa bandule u ahaa waxaa dagaalameen Cabdiraxmaan Mursal iyo nin la dhashay Axmed Liibaan la dhashay Axmed Liibaan wuxuu ahaa boqorka Maxamed Zubeer oo waama waxay dileen nin provincial commissioner ahaa gobolka xukumayay oo Kismaayo ilaa dhulka xukumayay oo la oran jiray JAC Jaina maal ciidankiisa oo dhan bay gamtu istaageen ka tirtireen gabigooda balaayeen wadi fahamtay Soomaa markii dambe waa lagu soo duuli doonaa wax la dhahay punitive expedition baa lagu sameeyay
على كل حال هذا النور أنا نور الشيء هذا قلت لك تاريخ الصومال دول كبار كوسية ها أنا مركا جيري أبوجي هوية أو هوية دي أنا على الصوت حسن مالنا حسن أحمد إنجليز كتير لي أحمد عمر وأبوجي هان أنت قبتين سي وهين يمرض بيسود داين ثم بيكدرين بالله مالين هل ما نكلم بنو ما لا ودتي ها هذه فهمتي سما marka taariikhda way jirtaa aabahay dadkii qaraabadiisa ahaa oo lagu laayay meesha la cadad wala xisaab awliyaanka waxa la qiyaasayaa ilaa 3,000 in laga dilay berigi oo ku dhamaadeen dagaalka berigaas oo dadka ay yaraayeen aad berigaas ay dadka aad u yaraayeen meesha مثلا dul bahante iyo daraawiishka oranaya hadda u yarta 15 baa ka dhimatay ka badneen waqtiga ka badneen wali waxaan aad u jeclahay inay aad uga badneed xagga dhanka intii ilaa 3,000 baa ku dhimatay ingiriiska marka dambe mumkin taariikhda hadda ingiriiska ay ka bixin waqtigii ingiriisku dadka halka Kenya askar ahaan iyo xataa u keenayay gobolada waqooyi meeqa heer amanku baaciidan ahaan halkan ku yimaaday ama wadanka soo galay waqtigaas dhulbaante ma isaaq baa badna dhulbaante warsangelay ku jireen والله لو واحد أنت كواركتي ودقن أو دلبانتي ساقي أو دلبانتي ورسنجلي أو يود أسكر بيها. ودتك مركز أسكرهام. أسكرهام بالله كاني ولي إن كقعد كذا دتك سومالي ده بار ديرة صلقلك اسماعي ما قرتي قارسة ما قرت لك سيلو محد أنا كوري ده معك سوق هذا سيلو كشجرة ذاك سوق هذا. فكذا كأنه كتش بيوم بوكان. إنه كتش بيوم سومالي بس كتش بني. أيها أنا قاعد كذا ما كنت دمبه. oo wali imaaday waxa la oran jiray Kings African Rifles oo madow ah oo Kenyaanka madow ah iyo Nubida ah oo waynu jibinay kaadkana si fudud wuxuu la imaaday British India Forces kii Hindiga kala singihi wala jibiyay Soomaalida kaadkaatay bas Soomaalidu keenay sidii baana laga adkaaday anaga magaalada Garis marka magaca Garissa waxa weyn Garrison weeyaan magaca halkaas ka yimid Garrison weeyaan صح halkaas ku yimid magaca marka waqtigaas aad gaar meel marka Garrison macnaheedu waxa weeyaan xaram military xaram military bay Garissa oo lagu contain gareeyo doogadan Soomaaliska xagga ku jira soo xirada military waqtigaas yareyd oo Garissa magaalo inta laga bixiyay way hal iskuul kaliya bay lahayd ana wali dhiganay primary mid kale la bilaabay jariib la dhaha oo meel kor laboratory laga bilaabay silig baa ku xirnaa magaalada saddexda qoys ogaadeenka kulligood boqortooyadooda meeshay wada joogeen waxa way awliyahan Awdaaq iyo Cabdalla saddex kursi bay baarlamaan gabiis meesha hadda lixda yihiin saddex kaliya Garissa North oo awliyahanka Garissa Central oo Awdaaq iyo Garissa South oo Cabdalla intaas bisay way koobnad way yareed aad bay u yareed dadkan ugu yaraa laakiin Garis waxay ku fiicneed maadaama ay Garrison ahayd qoysas waxaa jiray ilaa Maxamed Bakaari la dhaho askari saajin ahaan jiray Ingiriiska oo asalkiisa ma jirteen ah Abdullahi Brockbone ilaahu naxariistay abihi aduu oday iloonin jiray Ibrahim Atosh oo isaaq ah aan jeclahay inuu habar wallaha dadkii magaalada bilaabay markii carabtii Hindiya laga bixiyo waxay ahaayeen nimankii waqooyi laga keenay oo dhulbahante waxa ahaa ilaahay uu naxariistay Abdi Umar nin la oran jiray oo aabihi asagana saajin ah warsangeli waxaan nagala deganaa oo soo gaaray aniga wali cali galti la oran jiray asoo askari aan soo gaaray laakiin dadkii warsangeliga ahaa ilma aadan lord aan maqshin kalmoogi magaalada Slee oo dhan waxay ahayd xarada looda aadan lord lagu ilaaliyay daaqday aan jirtay loo ku haysan jiray ciida ka badan buu ku haysan jiray Ahmed aadan lordna wuxuu guursaday Amina Xayd oo anaga ayay noogu kuman oo gabdhihii aan siinay way ahaayeen dadkii aan siinay meel hadda carruurteedii baa nool wadi fahamtay Soomaa marka dadkii waqooyi nooga imaaday bacbishtari ha ku imaadaan jirtaanka inta badan waxay ku imaadeen bacbishtari oo wajeer Xaaji Ciise nilda Xaaji Ciise Yusuf baa dadkii bilaabay
in laga shaqeeyo carabta marka laga dhaafo iyo hindida annaga waxay ahaayeen isaaq iyo odayaal dhulmaantaa bilaabay magaalada markii hindiga iyo carabta laga dhaafo carabta waxaa ka deganaa nin baa yuusuf la oran jiray maamatraf way badnaayeen carabta dhowr qoys bay ahaayeen hindidana waxay ahaayeen nimankan memon la dhaha memon kachi taan maxamed cabdulgani ibrahim cabdulgani nin la oran jiray cabdulkariim cabdulgani yaa ka deganaa anoo caruur aan soo gaaray odayaal iyagoo ee dadka iyaga haddaba hantidooda way taallaa barbaa iibiyey oo soomaali ka iibiyey soomaalida deegaanka gadaal baa looga ogolaaday inay dukaamo ka hagaajiyaan magaalada laakiin asalkii dadkii bacmushtari iyo dhulka la siiyey oo magaalada magaaleeyey waxay ahayd dadka laga keenay waqooyi dadkaas waqooyiga ka yimaaday ee soomaalida waqooyiga waanu heshiinay markii dambe markii gaari zoonka arsamka ay ku yimaadeen iyagoo saraakiil 4 habrood oo aniga aabbahay iyo diyaalkii ee magaalada gaaris yaa nimankii arsamka loo dhisay arsam ma garanaysaa waa regimental sergeant major maama xamiida la dhaha oday isaaq baa loo dhisay firkii way joogaan haddaba anagana tirsan yihiin maxay ahayd maama la oran jiray faadima cawliyahani waan soo gaaray aniga iyagoo 8 ma jirta anigana aad u yarahay iyagana oday warsangeli baa qabay oo ilma dhashay firkeedan hadda way joogaan waxaa ka mid ah shukri barmaadi ninkan la yiraahdo oo maaragtay intelligence Kenya ragii u weyn ahaan jiray directorka ahaan jiray yaa iyay bay u tahay asaga doqol la oran jiray batula barishu xariir bare 4 habrood baa magaalada dadka bilaabay guriga ugu horeeyay magaalada dadkii qabiin waxay ahayd dadka askartii saraakiisha ahaa oo badana waxaanan ka ahayn xariir bare ninka qabiil oo dibad fiidow loo oranayay wareegaars asaga ahaa oday wuxuu ahaa cawdaaqe inta kale waxay ahayn dadkii waqooyi ka yimaaday marka magaalada taariikh bay leedahay lama soo koobi karo marka tii baan annagana wajeerna saasun bay ahayd oo soomaalida dadka u horreeyay oo soomaalida ah waxay ahayn dadka aan ku sheegay oo laga keenay waqooyi iyo dad ma jeerteen oo ku imaaday bacmushtari dooma soo raacay kismaayo ka soo galay kismaayo ku degay hataa dad reer miyi baa marka dambe xoolay barkood hagaajisteen nimankan cali Sulaymaan la dhaha maxaa koonfurta dhulkaasiito hadda Jubbaland la dhaha miyigeeda way degan yihiin oo ila degaan oo reerkayga la degaan waliba ilaa iyo xadka Kenya way soo dhawaadaan oo ilaa hadda waxay degan yihiin waa reer miyi ma jeerteen gacda waa reer miyi bacmushtari way jiraan nimankii wabeenaha oo almaxaj ilma macallin ciise la oran jiray oo qoys weyn ah oo dad badan baa hadda magac kale oo midna waxa kamid ah nimankan la baxay shirkadda Mandela la dhaha oo Uganda ninka u taajirsan Umar awowgii baa ahaa dadkii maxay ahayd awlabaadkii baa ahaa dadkii Kismaayo dhisay asalkeeda u dhisay laakiin reer miyiga iyo dadkii Ingiriiska la dagaalamay oo Kismaayo ku jabiyay oo dhulkaas oo dhanba bantuuga iyo ka qaaday maxay ahayd oromada ka soo qaaday ormaal soo riixay inta badan nimankii deydii orma aan jirnay kulli ogaadeen baa 100% iyo dad ku jira iyagoo ka tirsan oo sheegto hadda markii Jubbaland laga hadlayo oo nin kasta uu leeyahay aniga oo dad Talyaaniga markuu meesha joogay ku yimaaday ceenkan oo kale asal ahaan dadkii ma artay u soo waa la garanaya laakiin waa wadan Soomaaliyeed muhiimadda waxa weeyaan waa cosmopolitan aan Soomaali nin kasta oo Soomaalida meesha doonuu ka deegi kara laakiin dadkii waqtiga yimid dad kooban bay ahaayeen oo la garanay dadkii horta wadanka xoog baa lagu qabtay wadankan la iskama qabanin dhulkan dad baa lagu yimid territory acquisition waxa la dhahaa waxa iskeeda caadi adduunka dhan bay ka jirtaa qolon bay markay ka xog talbaantay dhulka qabsan jirtay markaas dhul ballaarsigan Soomaalida oo ilaa iyo yaa qarid meel dhaho hadda hal saac ay bar u jirtay inta Nairobi u jirto oo Mwingi marka dhaaftay ay tahay oo kaasi marka dhaaftay buurta yaa qarid oo Ingiriiska uga imaado Soomaaliya oo galku daajisanayaan oo degan inuu celiyo dabcay uu kari waayay Allah damaantii in la riixal isku day lama Soomaalida meesha degto inuu ka darjuudo deegaanka way kari waayay uu isku day oo hatta sharci ahaan wuxuu yiri wabiga gaars dhanka kale ka mara laakiin ma socon karto maxay waa dadka lama dadka way degan yihiin marka Soomaalida dhulkeedu rabay inuu yareeyo inuu koobu rabay wuxuu hagaajiyay wuxuu u yeeray wax la yiraahdo daarood invasion oo wuxuu yiri hadaan qaban weyna nimankan
ilaa iyo Nyasaland ilaa Malawi bay tagi doonaan oo dadkan bantuugan oo dhan iyo dadka Maasayda oo dhan bay dhulka ka qaadi doonaan biyir waa Ingiriiska wax oranaya Soomaali gaala line wax la dhaho hagaaji oo oromada lagu difaacay hatta wajeer ma ogtahay waa la isku haystay waa laga qaaday la kiciyay dadkii ka kiciyayna waa la garanayaa mid gartalkii ilaa Mandera ilaa dhulkaas oo dhanbo laakiin Soomaali waa Soomaali ajiba loo oran jiray bari hore iyo ajuraan baa loo oran jiray Soomaaliha marka inkastoo loo kala badnaa oo dadkii dalka qabtay ay u badnaayeen 80% ma koran ka badneenba ay ogaadeen ahayeen haddana dhul Soomaali weeyaan Soomaaliya dhan buu dhaxay ahaa وحاجات مركان تاريخ استفيد قصة نقولنا أنت هذا أصلا يعني أدو وقتي أنا مركي أجير أيجنا الله داعي أوجينا وكل أنت فلو الإنجليز كقولها أوجي أبهي أوجي ها سلطان ناديها يا عرورتي الصوتي أو حوالنا أوجي أيجنا الدجير هالمجالي مرساس أبهي مجالك صقرين يا أذرك أبهي كوينا oo maartay dadka oo dhanba abahay midba kooyina saddexna way ka yareeyeen afartan bay rag ahaayeen aboodna waa la dilaa soo wali konton markaa gaaray uu dhintay sidii uu ku dhintay wixii ka dambeeyay wajeer iyo gaars ma lahayn gaars markii abahay dub asta la qoriyay konton ilaa Ingiriisku qoriyay qoys hambal isku qori jiray oo Ingiriiska dadka uu qaybinayay kalaan boundaries hal dhawaaji marka ninka awliyaanka wajeer laga ma qori karo inkastoo awoogi wajeer uu joogay abayna wajeer ku soo koray ay noqotay qasab in gaaris la keeno laakiin gaaris haddana boqorka gaaris joogo awliyaanka wuxuu qabay gabar uu suldaan maadi awoogi yahay oo Sheekh Bashiir maadi uu dhalay oo abahay ay walaalihiin ilmaabtil meedeeyeen waaskiba markaas suldaankii waaski awliyaan oo Sheekh Maxamed Marfa looranay ya abahay sidoo ku baray shaqo gaaris ka qoray marka shaqadan aaba ku xirtay ميجي كل على طي وجاك هنا مجالد اللي كان سكول دكتي كذب ميجي ممكن نقطي فصح كسته حدكو حسوس التوحيد ميجي وأباهي لنكاس وإحنا حريص وقيمة له قال الله ذي أرجع الرعينجري ولو أرجع وحيرم بوها الله ذي قال الرعينجري الرعينجري قال وان الصدي أتصله صار حسوس التوحيد بعديه أنا مدبان أنا حسوسني لكن أي ليش شيء مركز تبعه هاي شيء جري نابينك كوينا ودنتي مركان يرى وحيرين إن آدوا في الفرعون وفضق بناها صح مركا أبينك كوينا جل أحمد يا جيل الراعي جيلي ويرى أم راعي وأم كراعي كمهري سو جيلي أنا أول السعودي بيهرد إنتي قبتي عن مال يعني كوكماي وهل مامي إنه ويلي أول السعودي أصحي أنا ماشي كوكماي قالي بس قصة وطو صومر عصدوها هبينك ودنسو السعودي وعدوا سويدي مركو عدوا سويدي بيس إسلامتي خير الله سي جنة الله كورابيه أيضا هويدي هذا أباهي وقبي ذلك جل أحمد وقبي ده أباهي كوينت وقراي عمر لورني يا تري والويل كاوي إلا حتى مركا ما حسوسنا مو حسوسنا أنت قيرهم بس كان حسود هذا جل أحمد والويل كاوي هدي اللي يراهدي والله ما ينبطي مركب على الأرض إلهي مقدرتي كبتي يدي هد أنا هرد اللي وجي مالي ما بكى بالك وحس هردي وين مالي إذا ربي هردي وين هذا السيد هردي جعلها ماشي بالك السوق هذا والنصيب وراه يمحون هذا الضوء يعوني كرت مركب هي ديوان يرى أفر ما إن شاء الله صح لكن أنا جو أجرو طبعا يكو يا فصحي أباهي وير الله ذراعه يا الله نحرسن الله دي ما وحر الراعي سن حرس دريه صح صلاة دي بعد يا أنا أبي ما أنا كودم بعد لو ذا الجري صح هرجل كيبيك حقك السوري سنو دودي بعد أنا أتجيني دودي بعد الله ذا لك ورابني ساك الصاد وحنت هذا كوي تجري أنا بحكود دمبيس إلا الله ذا ما مالك ري أرجع حكوا فينا وأطفش الشقي فش ما قرن أرجع مركان يرى راجل حكوا في عيه شد أنت تصاع وقبضت اللقطة أنت كشت وما أفكار تكون في الشقي كل سنة
loo asaga waa in lagu duweyla ma godlanayso geelana waa sidaas waa u godlan oo asaga dee weylihii baa dhex socdaan oo maraq waxa la dhahaa laga xiraa oo naasaha oo si fiican u nuugin markaad rabtay inaad maaragtay la lisana waad salaaxi oo dirigta unbaad ayaad ku sii daynay wuu godlana caanaha waad ka dharki laakiin lo'da waxa weeye waa raacaysaa lo'da waa dunyada ugu adag maxay ahayd dhibkeeda ugu badan yahay weeyaan waa nugul way nugushaad markaasaad fiidkii 11 jirkii saaka salaadii ugu dambeysay wax uu cunana aan jirin caano kali cabay iyo fiidkii haddana aanka laakiin way ku adadkeen waad ku adadkaan anigoo okay ilaa ganaaskii 7 baan kaga baxay meesha la yiraahdo Gaaris oo fasax kasta aan baadiyaha aan looda ku raacay fasax kasta iskuulka lagu fasaxo miyiga batagaysaa miyiga daray xooli baan raacaya laakiin waqtiga miyiga dadka ku soo koray aad bay ugu duwan yihiin dadka magaalada markaa ku jooga aad iyo aad waa adult baad noqon adoo yar you get an accelerated life and become an adult maxaa libax baad arkay صح libax ma aragtay anoo 15 jiro ma joogtaa magaalada Nairobi kambaniga Faras Taxi waxa uu ku bilaabay offer aad lacag ku sameyn kartid isbuuc walba haddii aad qaadatid 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo faras maylisa haddii aad qaadatid 15 trip waxaad helaysaa 1,000 faras maylisa haddii aad qaadatid 5 trip waxaad helaysaa 500 oo faras maylisa haddaba ka faa'iideyso offerkan axad ilaa isniin walba oo samee lacag adigoo safartaada ku raaxaysanaysid